Soo dhawaada jaalaya. Teamka Beta Squad waxay maanta sameynayaan challenge ah inay UK kusoo dhex wareegaan iyagoo sameyn doona challenge kala duwan kalana adag. Waxaa loo kala qaybin doonaa laba koox waxayna ku tartami doonaan London ilaa iyo Scotland. Si ay u guuleystaan waa inay kasoo baxaan 5 challenge ee loo diro. Guuleystaha challenge walba wuxuu abaalmarin ahaan u heli doonaa gawaari qaali ah oo u raacayo ilaa challenge kale laga gaarayo. Kooxdii guuldareysata gaari duug ah ayay qaadan doonaan. Kooxdii hordhameysa dhammaan challenge-yada waxay London ugu soo laaban doontaa private jet u gaar ah. Kuwii laga badiyeyna iyaga ayaa isa soo xallin doona. Waxaana la soo saaraa gawaarida ay kala raaci doonaan. Shilin ayayna ku kala baxaan. Ciddii guuleysata ayaana gaariga fiican qaadan doonta. Kuwa guuldareystana gaariga duuga ah ayay qaadan doonaan. Shanks iyo Sharky gaariga duuga ah ayaa u soo baxay. AJ iyo Kenny ayaana nasiib u yeeshay safar raaxo leh. Labada team waxay haystaan warqado ay ku qoran yihiin challenge-yada ay sameyn lahaayeen. Challenge-gooda ugu horeeya wuxuu ka dhacayaa Nottingham oo u jirta 120 mayl. Haddaba waxaa laga rabaa inay Nico u soo iibiyaan hadiyadda ugu weyn ee ay heli karaan. Kadibna waxay qofka codsanayaan inay cunto u kariyaan weliba qofka gurigiisa. Kooxdii ka soo baxda waxay challenge-gooda xiga u raaci doonaan gaari qurux badan. Kenny wuxuu AJ ku caayaa inuusan garanayn sida wax loo kariyo. Balse tartan hore loo qabtay AJ ayaa ka fiicnaa Kenny. Gaariga ay teamka Junks raaceen wuxuu Nottingham ku tagi karaa 3 saac iyo bar. Halka teamka AJ ay ku qaadanayso 2 saac iyo 20 daqiiqo. AJ iyo Kenny waxay ka sheekaystaan waxay hadiyad ahaan ugu iibin lahaayeen Nico. Safarkooda ayaa u bilowday. AJ iyo Kenny waxay qorsheynayaan inay hadiyad ka iibsadaan Northampton. Halka Junks iyo Sharky ay qorsheysteen inay ka gataan magaalada Leicester. Intay safarka ku jireen, Kenny wuxuu wacaa aabihii isagoo ku dhahaya waxaan soo iibsaday gaari cusub oo Lambo ah. Wuuna iga burburay ayuu ku dhahaa. Si ay uga sii naxsadaan AJ ayuu ugu dhiibaa. Isagoo iska dhigaya ninka gaariga laga iibsaday. Wuxuuna ku dhahaa gaari cusub oo 2024 ah ayaan ka iibinay. Banaanka markii uu baxayna wuu burburiyay. Waxaana ka rabnaa lacag ganaax ah oo gaaraysa $50,000. Markii uu odayga xanaaqayna inay kaftamayeen ayay u sheegaan. Haddana Kenny wuxuu wacaa gabar uu ku bartay muuqaalka halkan idinkaga muuqda. Haddii aadan horey u daawan qaybtan kore ayuu kaaga soo muuqan doonaa ee halkaas ka daawo. Wuxuuna ku dhahaa gaari Lambo ah ayaan wataa ee mugsoo maraa. Shanks iyo Sharky weli wadada ayay saaran yihiin. Halka AJ iyo Kenny ay soo gaareen Northampton si ay hadiyad ugu iibiyaan Nico. Waxay ku falfalaadaan alaabta meesha taala. Halka teamka kale aysan weli gaarin halkii ay rabeen. Midba wuxuu u arko inay tahay hadiyad weyn ayuu u soo qaadaa Nico. Maadaama ay hadiyadaha soo iibiyeen waxay ka gudbeen challenge-ga koowaad. Haddana waxaa laga rabaa inay baadigoob u galaan qofkii ay cuntada u karin lahaayeen. Shanks iyo Sharky-na hadda ayay soo gaareen goobtii ay u qorsheeyeen inay ka iibsadaan hadiyadda. Intuu Sharky ka fakarayay wuxuu Nico u qaadi lahaa. Shanks wuxuu raadsadaa barkin uu rabo inuu ku seexdo inta safarka uga harsan. Ugu dambeyn waxay go'aansadeen waxay u iibin lahaayeen Nico. Midkan ayayna ugu tala galeen. Haddana labada teamba waxaa laga rabaa inay gaaraan Nottingham si ay u raadiyaan qofka ay cuntada gurigiisa ugu soo karin lahaayeen. Sharky barkintii uu Junks soo iibsaday ayuu ku jiiftay. Dhammaantood waxay hadda soo gaareen Nottingham. Sikadiisa ayay isku arkeen. Teamka AJ markay Junks weydiiyaan waxay Nico u soo iibiyeen. Way ka naxsadaan iyagoo ku dhahaya dherer ahaan waxay la egyihiin dabaqa. Sidee ku soo qaadeen markuu dhahana? Maskax ayaan adeegsanay ayuu ku dhahaa Junks. Shanks uu AJ teamkiisa uga waalo wuxuu ku dhahaa maxaad soo kariseen iyagoo iska dhigaya inay ka soo gudbeen challenge-gaas wayna ka soo tageen halka AJ iyo Kenny ay la yaaban yihiin sida Shanks challenge-gan ay u dhameeyeen waxayna labada teamba bilaabeen inay baadigoobaan qofkii ay cuntada u karin lahaayeen AJ iyo Kenny waxay heleen yarkan waxayna u sheegeen inay cunto u karinayaan weliba gurigiisa cunto noocay jeceshay markay weydiiyaanna baasto ayuu ku dhahaa adeeg baasto ayayna doontaan halka Shanks iyo Sharky ay heleen yarkan markay u sheegeen qorshahooda marka hore wuu ka cagijiiday iyagana way fahmeen inuusan raalli ka ahayn qof kale ma noo haysa ayay ku dhaheen wuxuuna ku dhahaa dadka ila degan ayaan wacaya waana weydiinaya Shanks yarka number ayay ka qaateen wayna iska fasaxeen si haddii qof kale ay waayeen ay isaga u wacdaan AJ iyo Kenny adeeg ayay soo doonteen si ay cuntada uga sameeyaan balse laqdabo ayay ku heshiiyeen kadibna way isa soo raaceen gurigiisa ayayna imaadeen halka Shanks iyo Sharky ay ku dhacday mahmaadii ahayd lama huraan waa cooskii jiilaal waan ula jeedo inay dib ugu soo laabteen yarkii ay horey u fasaxeen Sharky wuxuu Shanks ku faaliyaa inuu yahay cunto kariyaha ugu fiican ee Beta Squad Kenny-na dadkii guriga lahaa ayuu ku dhahaa jawi qaata anaga ayaa idin wacayno marka aan dhameyno waxayna bilaabaan inay isku kariyaan waxyaabo aan la iskugu talagelin halka Shanks uu si daacada ugu sameynayo wixii laga dalbaday walow uu faan nafta uga qaaday haddana wuxuu sameeyey wax laga helay sidaas ayayna challenge-gaas uga gudbeen Shanks iyo Sharky balse AJ iyo Kenny waxaan la garanayn ayay kariyeen si aan looga shakinna miiska ayay sii nadiifiyeen dadkii ay u kariyeen ayay u waceen kadibna waxaa loo diraa inay raadiyaan meel uu yaalo bas nooca raaxada ah iyo gaari yar oo xilliyadii hore la isticmaali jiray qofkii hor hela ayaa baska raaci doona labada teamna waxay baadigoob u galeen inay helaan gawaarida AJ iyo Kenny ayaana hor arkay taas oo la micno ah inay iyaga baska raaci doonaan Shanks iyo Sharky-na gaariga yar ayay raaci doonaan maadaama ay gaariga soo raaceen
waxaa u bilaaban doona challenge kale. Goobta ugu dambeysa ay gaari doonaan waa Newcastle. Waxaa laga rabaa inay sawir la soo galaan qof u eg dadka ka tirsan Team Beta Squad. Intaysan midaas sameyn, waxaa laga rabaa inay sawir ku galaan dhisme caanka ah UK. Junkies iyo Sharky waxay heleen dhismahan oo ku dhawaad 1000 sano dhisan, sawir ayayna ku soo galeen. Waxaa u dhiman inay sawir la galaan qof u eg qof ka tirsan teamka Beta Squad. Halka AJ iyo Kenny ay sawir ku soo galeen calaamadan oo caanka ah gudaha UK. Labada teamba hadda Newcastle ayay soo gaareen. Nasiib wanaag, Chunks iyo Sharky waxay heleen wiil u eg AJ. Sawir ayayna la galeen. Haddana waxaa laga rabaa qofkii ku hormari lahaa gawaarida safarka kale lagu galayo. Nasiib wanaag markan Chunks iyo Sharky ayaa nasiib u yeeshay inay raacaan gaari Tesla ah. Halka AJ iyo Kenny ay nasiib u yeesheen gaarigan. Kadib waxay isugu faanaan sawirada ay dadka la soo galeen. Kadibna challenge-gii ugu dambeeyay ayay u dhaqaaqaan. Meesha u dambeysay ay markan tegi doonaan waa Glasgow. Halkaas oo ay diyaar ku tahay diyaaradda nooca raaxada ama private jet-ka. Intaysan u tagin diyaaradda, waxaa laga rabaa inay soo helaan box buundacaan ah hoosteeda lagu qariyay. Qofkii hor hela ayaana guulaystaha noqon doona. Labada teamba way dhaqaaqeen. Nooca gaariga ay Junkies iyo Sharky raaceen, Charger ayuu ku shaqeeyaa. Debka ayaana ka dhacay, taasna waxay fursad u tahay AJ iyo Kenny. Chunks iyo Sharky intay ka daba imaadeen ayay dhaafeen AJ iyo Kenny maadaama ay wataan gaarigii ugu dambeeyay ee Tesla. Dhammaan waxay soo gaareen goobtii loogu tilmaamay boxka. Nasiib waxa u yeeshay Chunks iyo Sharky. Waxaana loo sheegay inay xirtaan dharka boxka ku jira si ay diyaaradda u raacaan, wayna xirteen. AJ iyo Kenny markay soo gaareen meeshii diyaaradda tiilay, waxay arkeen in looga soo hormaray diyaaradda, ayna guuldareysteen. Chunks iyo Sharky ayaana raaci doona diyaaradda, halka AJ iyo Kenny ay iyaga isa soo xallin doonaan. Fadlan haddii muuqaalkan aad ka heshay like noo saar. Mahadsanid jaalle.